Okay, bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allah alay slam maanta oo ay bisha luuliya tahay 4/2019 waxaa sharaf weyn u ah guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland in uu halkan ka soo gudbiyo jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ee 2019 guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland asaga oo ka duulaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday isla markaana garwaaqsan muddaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda jubbaland wuxuu soo saaray jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland 2019 maalmaha iyo saacadaha ay dhacayaan shaqooyinka qaar waxay ku soo baxayaan qoraallo gaar ah inta lagu guda jiro taariikhaha loo cayimay waxaan rabnaa inaan halka ka soo jeedino taariikhahaas loo cayimay shaqooyinkaas haddii la yidhaahdo ee jadwalka waxaa ugu horeeya in aan u yeedhno odayaasha soo qori doona ama soo xuli doona xildhibaanada ee ka maqan magaalada kismaayo waxayna ka bilaabanaysaa muddada ay ku imaan doonaan haddii la yidhaahdo magaalada kismaayo 5 bisha ilaa 15 luulyo 5 ilaa 15 bishan aan ku jiro ee luulyo ayay dhammaantood xaadir ku soo noqon doonaan haddii la yidhaahdo magaalada kismaayo soo xulista iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka waxay ka bilaaban doontaa haddii la yidhaahdo maalinta 16aad bishan luulyo ilaa 6 August waa muddo 20 beriya ayaa lagu soo xuli doonaa haddii la yidhaahdo xubnaha baarlamaanka oo odayaashu ku soo xuli doonaan diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ama madaxtooyada waxaan bilaabi doonaa maalinta 16aad waxayna socon doontaa ilaa 22 luulyo ee bishan aan ku jirro haddii la yidhaahdo shaacinta iyo dhaarinta xubnaha baarlamaanka ee cusub ama baarlamaanka labaada jubbaland waxay ka bilaaban doontaa 7 bisha August ilaa 13 bishaas 7 ilaa 13 bisha August waa shaacinta iyo dhaarinta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka 14 ilaa 15 August ayay dhacaysaa haddii la yidhaahdo khudbad soo jeedinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka waa 17 August ayay dhici doontaa haddii la yidhaahdo 2019 doorashada guddoonka baarlamaanka 18 August ayay dhici doontaa haddii la yidhaahdo khudbad soo jeedinta musharaxiinta madaxweynaha waxay dhacaysaa 20 ilaa 23 August ee bishan soo socotay August haddii la yidhaahdo doorashada madaxweynaha waxay dhacaysaa 24 ilaa 30 August ayay haddii la yidhaahdo dhici doontaa ee sanadkan 2019 intaas waxaa waaye waa jadwalkii guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland haddii la yidhaahdo waxaan rabaa halkan inaan ka sheego shaqo kasta markay dhacayso waxaa jiri doona jadwallo kan ka sii tafsiilsan oo saacadaha iyo wakhtiga iyo xilliga oo horta lagu soo qori doona ayaa jiri doona oo la socon doona waxaa kaloo jirta odayaasha dhaqanka laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha doorashadiisa intan hadda aan sheegnay oo dhan waxaa la socda mid walba markuu bilaabanayo waxaa la socon doona habraaciis shuruudihii iyo hadday anshax jireen iyo wixii shuruuc ahaa ee arrintaas la socotay oo dhan way la socon doontaa xilligeeda tusaale ahaan haddii la yidhaahdo markii aan odayaashu ay soo xaroodaan waxay heli doonaan habraacii ay ku soo xuli lahaayeen doorashada shuruudihii xildhibaanada ay ku soo xuli lahaayeen iyo wixii laga doonayey oo dhan oo qoraala ayaa la siin doonaa waxaa kale oo
dabcan odayaashu ay leeyihiin ugu yaraan 2 beri oo workshop ah oo la siin doono oo ay si fiican loogu caddayn doono xeerarkaas iyo shuruucdaas iyo shuruudahaas iyo habraacyadaas ayaga khuseeya haddii ilaah yidhaahdo markay timaado musharaxiinta oo isdiiwaan gelinaya iyagana haddii ilaah yidhahdo oo madaxweynenimada isu sharaxaya ayagana xilligaas waxaa haddii ilaah yidhahdo lasoo saari doonaa document isugu jira shuruudihii laga rabay qofka musharaxa xuquuqdii uu lahaa maxaan ku dhahaa anshaxii laga rabay in qofka uu saxiixayay kulli waxaasoo dhan ayadana waa lala soo saari doonaa hadii la yidhahdo way la socon doontaa haddii la yidhaahdo tan speechka iyo hadday noqoto ta guddoomiyaha iyo ta madaxweynaha ama markatay hadlayaan ama ay baarlamaanka laga hadlaayo haddii la yidhahdo saacadahooda iyo waxooda dhan waa la soo caddayn doonaa intaas marka waa jadwalkii guud ee doorashada dowlad goboleedka Jubbaland laga bilaabo soo xaraynta odayaasha dhaqanka u yeeridda aan iraahdo dadka ka maqan magaalada Kismaayo ilaa doorashada madaxweynaha ayay jadwalkani ayuu caddaynaya haddii la yidhahdo si guud u caddaynaya sida aan sheegay shaqo kasta goorta la qabanayo iyo saacadaha iyo xilligeeda markeeda ayaa la sheegi doonaa shuruudo kasta iyo shuruuc kasta markii meesheeda la joogo ayaa la shaacin doonaa laakiin sidaasay u dhacaysaa jadwalka guud ee doorashada haddii la yidhahdo dowlad goboleedka Jubbaland halkaa waxaa ku haray ama ku hari doona shakigii ahaa doorasho ma dhici doontaa mise ma dhacayso ayaa halkaa ku haray halkaa waxaa ku haray maxaan ku dhahaa wax kasta oo lalahaa maxaan ku dhahaa musharaxiinta ayaa dib loo dhigayaa ilaa doorasho ay ka dhacdo maxaan ku dhahaa ilaa ay xildhibaano laga helo taasna way dhammaatay waxaan soo hormarinay annaga oo qadarinayna maxaan ku dhahaa su'aalo badan oo naga yimid dadka doonaya inay is sharaxaan